geerida kadada ah oo dadku ay saa u dhimanayaan nabigeenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam wuxuu inoo sheegay inay kamid tahay calaamaadka ku tusaya inay qiyaamadii soo dhawaatay adduunkanina gabagabayay waxaa ka sugan inuu yidhi nabigu sallallahu alayhi wasallam min iqtiraab as-saa'a qiyaamada soo dhawaanshaheeda waxaa kamida an yadhhara mawt al-faj'a inuu faafo oo muuqdo geerida kadadii adoomadu markay ilaahay caasiyaan oo ku kufriyaan oo ilhaad ku kacaan oo dhulka ilaahay dunuubta ku badiyaan oo taacadiisa ka haajiraan oo kibraan oo wax ismoodaan ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala darbaaxaya wax iqaabaya saastaradeed baa nabigeena waxaa ka sugan sallallahu alayhi wasallam inuu yidhi mawtul faj'a akhdatu asaf geerida kadadii waa qabasho ka timid ilaahay cadhadiisa طبعا فجارتا dadka xunxun iyo gaalada in badan oo muuminiinta kamidana shahaada iyo dambi dhaaf iyo naxariis bay u noqonaysaa oo musiibadu markay timaado sabab ay ku timaadaba ilaahay tabaaraka wa tacaala adoomadiisa mid xun iyo mid fiicanba way wada gaadhaa sida ilaahay quraanka inoogu sheegay tabaaraka wa tacaala nabiguna ahadiistiisa inoogu sheegay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi marka cadho ilaahay oo laga cadhaysiiyay oo dunuub la galay qabasho ka timid weeyaan buu nabigu sallallahu alayhi wasallam iyo cuquubo ka timid geerida kadadii yaa sida yiri nabi muhammad salawaatu rabbi wa salaamu alayhi alladhi la yantiqu 'an al-hawa in huwa illa wahyu yuha wa wuxuusan faylu suuf ka warrami karin waa wuxuusan aqoonyahan ka warrami karin waa waxayna khubaradu waxba ka sheegi kareynin xanuunka daahirkiisa waxa yimid bay waa la dhimanayaa asbaabta loo dhimanayay wax ka sheegi karaan laakiin xagga rabbi waxa ka yimid ciladiisa iyo xikmadiisa waxba kama yaqaanaan wahyi kitaab alle iyo nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo rususha hadalkooda oo ilaahay ka warrama tabaaraka wa tacaala iyo xikamkiisa baa wax ka sheegi karay marka waa akhdatu asaf ama akhdatu asif maxaa loo baahan yahay marka sidaas oo kale markii ay xaaladdu u jirto oo dadku dhimanayaan oo la geeriyoonayo si jamaaciya loo socdo waxaa loo baahan yahay in aynu talagalkeeda yeelano waxa loo baahan yahay inaan diyaar garowno waxa loo baahan yahay inaynu ku talagalno ka qabriga maanta la geeyay ee soo aastay ka ku xiga miyaad noqon doontaa mise lama yaqaan xagee iyo sidee iyo sababtee iyo goorma waa hawl ilaahay khaas leeyahay laakiin waxaan hubnaa oo xaqiiqo biyo kama dhibcaan ah ama daah ama haddaahdo ama ha soo degdegtee inaad geeriyoon aad adduunkan dhaafayso xaqiiqo la hubo waaye kullu nafsin daa'iqatu lmawt maxaa kula gudboon marka lagu xusuusiyo lagu tuso saaxiibkaa tagay oo kii kula fadhiya tagay oo يعني وحوي dadkaagi tageeno inta taqaanay la soo sheego adduunkii socdo ya ninkii loo xiirayo ya ninkii qeyrkii loo xiiro soo qoyso ninkii qeyrkii tagayo iskeen maxaa ku laaban wala tamutunna illa wa antum muslimun udiyar garooba geerida hadhimanin illa adigoo ilaahay u hoggaansan mooyee hadhimanin illa adigoo tawxiidsanaya mooyee hadhimanin illa adigoo ilaahay ateecaya mooyee hadhimanin illa adigoo ilaahay raali gelinaya mooyee wala tamutunna illa wa antum muslimun istiyaari oo istiyaariya
oo u diyaar garooba xaqiiqada biyo kama dhibcaanka ah waxaa ka mid ah waxyaalaha laynoo jideeyey ee marxaladan oo kale loo baahan inaan ku dadaalo khaatumo wanaagsan inaan ku dhimanno in hadalkaaga kelimatu tawxiid ugu dambayso laa ilaaha ila allah inaad camal wanaagsan oo ilaahay jecel yahay adoo haya aad ku geeriyooto nabigeenna waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu yidhi ruuxu adduunka wax kastoo uu noloshiisa soo ahaa ama soo samayn jiray meesha ugu dambaysa waa khaatumadiisa maxaad ku dhimatay ma gaalnimo ma islaannimo ma taaco ma macsiyo ma khayr ma shar maxaa kuugu dambeeyood ku geeriyootay miisaanka hawl culus bay ku leedahay saas daraaddeed baa aayaddu waxayna leedahay walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuuna xaaladda aad dhimanaysaan ku geeriyooda idinkoo hoggaansan oo ilaahay u hoggaansan tabaaraka wa tacaala nabigeennana waxaa ka sugan sal alla alayh wasalam inuu yidhi ilaahay addoonkiisa hadduu khayr la rabo wuu shaqaalaystiistaa istacmalah ilaahay wuu dirsadaa shaqaaluu ka dhigtaa hawl buu u dhiibtaa markaasaa waxay yidhahdeen kayfa yastacmilu see buu u shaqaalaystaa maxaad ka wadaa markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alayh wasalam wuxuu waafajiyaa camal wanaagsan oo khayr ah intuusan geeriyoonin marka lagu soo dhow yaho xaaladiisu soo dhowaato wakhtigiisu dhammaad yahay ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala hanuuniyaa khayrkaa loo diraa salaaduu badiyaa soonkuu badiyaa sadaqaduu badiyaa khayrka amridiisa iyo reebidda xumaantuu badiyaa wuu towbad keenaa wuu soo noqdaa qur-aankuu ku hanuunaayoo qaabilaa asagoo wanaaggaa iyo khayrkaa ku dul sugan ayay tiisii u timaadaa allah baa khayr la damcay ilaahay baa khayr la doonay xadiidka waxaynu ka fahmaynaa addoonka haddaan khayr lala doonin asagoo shar iyo xumaan ku dul sugan ayuu geeriyoodaa oo tii ilaahay u timaadaa innama alumuuru bilkhawaatiim khaatumada hagaajiso ilaahayna u laabo tabaaraka wa tacaala xaaladdan oo kale waxyaalaha loo baahanya waxaa ka mid ah oo muhimka ah in aad loo badiyo istikfaarta iyo towbadda lianna towbadda iyo dembi dhaaf weydiisiga ilaahay oo la badiyo balaayo soo socotana way ka hor tagtaa balaayo addoommada markaa haysatana way qaadaa waan istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayhi yumatickum mataacan xasanan ilaa ajalin musammaa yumatickum mataacan xasanan intaad wakhtigaaga ka gaadhayso nolol wanaagsan buu ilaahay ku noolaynayaa haddaad badiso istikfaarta iyo towbadda wamaa kaana allahu liyucadibahum wahum yastakfiruun waa gaaladii ilaahay ma cadaabayo inta ay dembi dhaaf weydiisanayaan saas daraaddeed badiya astaqfiru llah wa atuubu ilayhi astaqfiru llah wa atuubu ilayhi astaqfiru llah wa atuubu ilayhi badi carabkaaga ha ku badato waxaa kaleeto muhim ah maadaama aad aragtay in laysgalay hawshu dhinacyahaaga ka dhacayso saaxiibbadaa lala tegay qaraabadii la qaatay intaa taqaanay inaadan aqooninba ay socdeen adigana waad ku xigtaaye dardaaranka taqor nabigeenna waxaa ka sugan sal alla alay wasalam inuu yidhi ruux muslim ah oo wax la dardaarmo haya inuu dardaarmo rabo haya laba habeen ay marayaan xaqiisu ma aha garna ma aha inay sidaa ku maraan wax la dardaarmana agtiisa ay yaalaan haddana uusan dardaarmin garna ma aha xaqna ma aha wax la dardaarmo ayaa agtiisa yaalla inuu dardaarmuu doonayaa laakiin ma dardaarmin habeenaa maray
toddobaad yaa maray bilaa maray sannadaa maray dardaaran ma leh gaar ahaan waxa la doonaya inaad ka dardaaranto hadday tahay xuquuq bini aadam daymaa lagugu leeyahay dulmi baad gashay madaalim ammaanooyin baad haysaa inaad tabarrucaad iyo sadaqaad iska hormarisaad rabtaayoo dardaaranto dardaaran qor laba habeen markay soo martaba ku noqo dib u fiiri dhib weyn baa inaga haysta waa la dhimanayaa waxba ma qorna ruuxan xuquuqdiisii ma qorna tii lagu lahaa ma qorna daymihii ma qorna madaalimtii iyo dulmiguu galay ma qorna soo qabriga laguguma sugayo marka sidaadii lagaaga soo laguu geliyo godka laguu geliyo ayaa waxaad dayacday qoorta kuu sugan tahay waana laguu haystaa sidaas daraaddeed dardaaranka iska qora markhaati u sameeya saaxiibbadiin u dhiiba meel aamina dhiga reerahaaga u dhiib wahaakadaa si aad u nabad gasho nabigeennu markuu sidaa leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xaaladda uu ka warramayo ummaddiisa uga digayo waad garanaysaa sidaas daraaddeed dardaaranka qora qaata xadiidka nebiga sala allahu calayhi waaalih wasalam qaar baa ilaahay hanti siiyey tabaaraka wa tacaala oo xoolo badan haysta intuu noolaa inuu xoolihiisa sadaqaysta waxaa u diiday bakhaylnimo geeridiisa kadib inuu sadaqaystoo dardaarmana waxaa u diiday shaydaan iyo naf baa gafiyey hantiduu ka tegay waa taajir ee sidaadii uu qabriga u galay carruurtiisii iyo xaasaskiisii baa isku qabsaday koob shaaha inay uga sadaqeeyaanna waa diideen war yaa iska le dayacaas soo adigu malihi intaad noolayda waxaa kuu diiday bakhaylnimada iyo lexjeclo kugu jirta haddaad dardaarmi lahayd oo geeridaada kadib wax baxsan lahaydna waad ka gaabisay oo maadan qorin in xoolihii dembigoodu adiga ku saarnaayeen laysku laayo oo koob shaaha lagaaga soo sadaqayn waayo waad istaahishaa markaa war isdaba qabta war dardaaranka qora war dardaaranka ka taga war xuquuqda iska ilaaliya war duyuunta qora war bini aadamka madaalimta aad ku samaysay hadday tahay wax gadaashaa lagaa bixin karo qor si aad u badbaado akhiiran xaaladahan aan ku sugannahay walaalayaal waxay mudan tahay inay aad inoo gasho cabsida geeridu yididiiladiiyo adduunyo jacaylkana aan soo gaabinno wayba gaabatayba inay gaaban tahayna waabaad aragtaa maxaa waa lagu qaban ma berri baa lagu qaban ma saadan baa lagu qaban soo gaabi qorshayaasha dheer soo gaabi adduunyadan kula tagtay soo gaabi kursigan aad u dagaalamayso soo gaabi xoolahan aad daba ordayso soo gaabi aafadan ku haysata soo gaabi meel kula gaadhi mayse sokadeedaa lagu qaban doonaaye soo gaabiyo geeridu inay ka sokayso mar walba qalbigaaga ha ku jirto adoo meel fog laacaya baa meel ka sokaysa lagaa qaban doonaa yaa hasha qadowga laacaysa qadowga sokadiisay qow ku dhacdaa adoo meel fog laacaya 20 sano 30 sano qorshahoodaad dejisay ilaan geeridiina waaba saa dambaba bini aadamku waa wada sida nabigeennuna wuxuu inoo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh in yididiilada dheer iyo adduunyo jacaylku bini aadamka inay la abtirsato oo ninka da'da ah ee sariirta ku urursaday ama haweenayda da'deed sariirta ku urursatay ee wax walba ka gaboobay wax walba waa ka jilcay wax walba waa ka quustay laakiin laba shay nabigu wuxuu yidhi qalbigiisu dhallinyaru ku yahay waa adduunyo jacaylka iyo yididiilada dheer waad sii noolaan doontaa maalmaa kuu laaban sannadaa kuu laaban waxaa nabigeennu sawir ku bixiyey
يا أو حريق كبحيي بني آدم كيدي ديلدي سيو ميل فوق سي سعوتا iyo asbaabtii keenaysay geerida oo dhinacyaha ka haysa iyo geeridiyo ka sokaysa yidiilada dheer ee meel fog uu sii laacayo nabigu wuxuu ku bixiyay xariiq oo ummadda u sharxay salawaatu rabbi wa salaamu calayhi wa hadihi alxaqiiqa sidaas daraadeed walaalayaal xaaladda aan siday tahay ula mucaamaloonno ilaahayna aan u toobad keenno ducadiyo baryada aan badinno nabigeennu salawaatu rabbi wa salaamu calayhi إلهي وحيالو كم جل جرا وحى كمذا إن عقابتيسو سكدا وقتمادو ودعوين كيسي وحى كمذا كما في صحيح مسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك إله وحان مجن كاجا أهل النعمة ذو إن إضافتو إجزوش وتحول عافيتك عافمات كاجو إنو يجوريجو وفجاءة نقمتك عقوبة ذو إن يجسو كديسو وجميع سخطك إيا عرضا دور دمار إله مغان كاغا إلهي كم مغان كال عذر ذا لستا غيري ذا دقدقا خاتم حمضة حالة حنونات كل متو إلهي أعر توبت كين إلهي أتضرع حالة سهلا ماها آيات ربي تبارك وتعالى أدومدي سؤوت تصي إنه أنه أركيان إلا الله وعلامتك تصيص إلهي قدرتي أودي عالم كينا قروسا لا يهي قال كيسي ملحد كيسي ما قروسا لا وعاجزين وحبوا قبوا وينقع ما هي تاجين خبرضو ذي دخاتير تودي أقوى يهن كودي دولة دودي دولة دهودي اسبتال دودي قلب كي دياريين إلهي بانكو قداري بلو فيرسو ومخلوق ير oon ishu qabanaynin oo ilaahay makhluuqaadkiisa ka mid ah culimada ku takhasustay waxay leeyihiin cilmiga fayruusaadka fayraska corona oo dhan ee adduunka baabi'inaya haddii inta la soo ururiyo koobada yar ee laga cabo bebsida laga cabo koobada haddii lagu wada rido fayraska corona oo dhan koobadaasi ma qaadayo koobadaasi ma buuxinayo ilaahay baan ku dhaariyo fiirsada kooba yar caalamkii mashriq iyo maqrib buu gilgilay waana makhluuq yaroo kulligii haddii la isu keeno meel yar aan buuxin karayn war aayadda ka weyn aaway calaamadda ka weyn aaway قدرة كبلارن آوي كورن الله تبارك وتعالى كاني هدو عقوبة كوين كاني لها فيروس كاير كي تعبان كي مخلوقة وح كوين هدو كصلي لها معاد بالله هدنا مع ذلك كبير كبني آدم كي يسلوين كيسا ولا جروسا لا يهي الله تبارك وتعالى وانا لقير الله لكن أنك مسلمين تا إيمان بانوسي هذي إلهي قدرتي سي أودي صون رومي سنين بان هدنا إيمان سيسيات سني الله تبارك وتعالى أود أوليه الدون كان هدو دمعه هل مر إنو الرقي كرو البرقسي يكير إنو باب إنكريو تبارك وتعالى سيداس درادد إلهي قضيه سي قدر كيسان الرالبة إنو كنا هاي هدنا مع ذلك إنو ددالو وحالدني نولشة إنو وحكبت دشور دنك وناكسن إسوبة دلاوالا مارماني صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن نعوذ بك من الوباء والفتن والبلايا يا حي يا قيوم ونعوذ بك من سيء الأسقام يا حي يا قيوم اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفتن اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والفتن اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفتن يا أرحم الراحمين نعوذ بك من سيء الأسقام والأمراض والأوجاع يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
bal nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii u shaqayn jiray Anas ibn Malik ahaa ayaa wuxuu leeyahay anuu nabiga u shaqaynaya wuxuun baan maqlaa isagoo ku celcelinayoo leh allahuma innii acuudu bika min alhammi waalxasan waalcajsi waalkasal waalbukhli waaljubn wadalaci addayni waghalabati alrijaal isagoo ku celcelinayoo leh ilaahu waxaan kaa magan galay warwarka iyo walbahaarka iyo tiiraanyada iyo murugada hamigu waa waxa soo socda uu qofku ka warwaro mustaqbalka oo la madoobaada oo dabeetana qofku warwaro xusniguna waa wixii ka tagay qofka oo tiiraanyo iyo murugo ku reeba idan waa laba warwar ama laba walbahaar laakiin waxay ku salaysan yihiin midna waa wixii tagay midna waa waxa soo socda nabigu calayhi salaatu wasalaam labadaba ilaahay buu ka magan galay wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay alcajsu waalkasal waa labadan xanuun aynu hadda sheegaynay qofku inuu cadam alqudra inuu wax awoodi waayo ama in doonistuba ka dhimato doonistuba inay ka dhimato oo dadka badh baa wahsiga iyo hurdada mooda inay nimco tahay waa raaxaysanaya buu leeyahay deetana uu jiifaya saa baktiga waxba nolosha hurda kuma soo kordhiso qofku waa inuu hurdada seexdaa intuu uga baahnaa uun intuu caafimaadkiisa ku ilaalinayay intuu nashaadada jidhkiisa uu dib ugu soo noqonaysay sida awgeed buu nabigu wuxuu ilaahay ka magan galay wahsiga iyo waxtaryarida wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay bukhliga iyo jubniga jubnigu waa baqaha waa qofku markuu wahsado dee wixii uu ka baqaya dabeetana si aad u sugaysa u leedahay baraad qaban inaad u leedahay ayay iswada fuulaysa hadhowna waxay gaadhaysaa shaqadii waxaanad qaban karinba bukhliguna waa wixii oo anfacaagii oo aan dadka gaadhaynin wadalaci dayni waghalabati rijaal waxa uu nabigu sheegayna waxa ka ratibma daynta oo kaa xoog badata iyo bini aadamka oo kaa xoog bata xadiidkani waxa uu tilmaamayaa markaynu soo duuduubno qofka muslimka inuu qof active ah qof nashiita qof firfircoon qof raba inuu wax qabto qof camal adduunyo mid aakhira midun ku foogan qof aan noloshiisu khasaare noqonin ama waqtigiisu khasaare ahayn ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya walidaalika buu nabigu wuxuu tilmaamayaa waqtiyada qaarkood ayacjizu axadukum buu nabigu yidhi waar midkiin miyuu kari waayaya an yaksiba kula yawmin 1000 xasana maalin kasta inaad 1000 xasano shaqaysato miyaad awoodi kari waayeysa nin raggii meesha fadhiyey baa wuxuu yidhi kayfa yaksib axaduna 1000 xasana oo midkaa yeesuu 1000 xasano u shaqaysan karaa 1000 ajara u heli karaa qaala yusabixu 100 tasbiixa fayuktub lahu 1000 xasana dee 100 goor baad subxaan allah odhanaysaa iyo waxa lagu qoraya subxaan allah intay kaa qaadanaysa 100 gooroo subxaan allah waa less than 1 minute ka waran hal daqiiqo oo noloshaada ka mid ah haddaad 1000 xasano shaqaysan karto saacaddii misaad shaqaysan karaysa waxaa meesha taalla markaa nabigu wuxuu leeyahay qofkaasi subxaan allahi yidhaahda ee tasbiixda la yimaada 1000 xasanana waa loo qoraa aw yuxatu canhu 1000 khati'a ama 1000 dambaa laga dhigaa cagsigu dad buu gaadhay inay xataa awoodi kari waayeen inay ilaahay baryaan ilaahay baryadiisa xataa inay ka gaabsadaan sawgeed buu nabigu wuxuu leeyahay acjasu nnaasi man cajasa can idducaa acjasu nnaas man cajisa can idducaa dadka waxaa u caajisnimo badan dee ninka awoodi kari waaye ilaahay inuu baryo wa abkhalu nnaasi man bakhila bisalaam dadka waxa kaloo u bakhaylsan buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofka dadka kala bakhayla inuu ku yidhaahdo assalaamu calaykum assalaamu calaykum waa duco inaad dadka u ducaysad kala bakhaylaysa ayuha alaxiba waxay leenahay cajsigu marar badan buu noqdaa jahliga marar badan buu sababta cajsiga keenta ay tahay aqoon darrada
waayo subxaana allahi haddaanad ajarkeeda garanayni waa aqoon darra ku haysata. aqoon darradu waxay keentaa qofku inuu waxba qaban waayo. hadaad aragto qof aydhal ah, jahlnima haysata. walow uu xoog badan yahay, walow uu dakaagiisu intelligencekiisu uu sarreeyo, walow uu caqli badan yahay, mar haddaanad muntij ahayna wax soo saaraynin, waxay idhaahdaan nolosha waxaa qiimaha ku sameeya ma aha inaad caqli badantay ee waxa weeyaan bay idhaahdaan inaad hardware kar tahay. nolosha taasaa raad ku leh. qof xoog wax u qabta inaad tahay. garadka badane hadduu hurdo dhalo waxba tari maayo. si kastoo aad daki u tahay, haddaad qof laysiyatay, qof aan firfircoonayn haddaad tahay, garaad bandidu waxba kuu kordhin mayso. si awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayaa, amaba se aan aayadda qur-aana tilmaamo, ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aan ku tilmaamay qof dhan oo bini aadam ah oo intuu dembiilo noqday arday u noqday tuke. qiyaas inaad tuke arday u noqotid, tamardarradu halkay gaadhay. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy fabacatha allahu ghuraaban yabxathu fi lardi liyuriyahu kayfa yuwaari saw'ata akhiih qaala yaa waylataa acajaztu an akuuna mithla hada alguraab fawariya saw'ata akhi faasbaxa min annaadimiin. in aadamkii walaalkii dilay markuu dembiga geystay, walow uu xoog weynaayo xooggaa walaalkii ku dilay uu qabay, kadib aqoon darrada haysatay waxay noqotay si uu u galo meydkii walaalkii buu garan waayey. ilaahay baa wuxuu u soo diray tuke. tuka markaa aqoonta ah in wax la xabaalo baray. tuka kaloo dhintay godu qoday oo aasay. wuxuu baray markaa in wax la xabaalo. wuu halaan halay ama wuu calaacalayo wuxuu leeyahy yaa waylataa acajaztu an akuuna mithla hada alguraab. halaagaygiiyow kaalaye, ma waxaan ka liitaa, ma waxaan ka waxtar xumaaday inaan tukahaasoo kala noqdo. idan jahligu tukuu macallinkaaga dhigi. dad badan oo maanta soomaaliyeed oo iska fadhiya waxay la fadhiyaan waxay qabtaanba way garan waayeen. jahligaa fadhiisiiyey. beer si loo qoto ma garanayo, wax kale si loo sameeyo ma garanayo, aqoon si loo barto ma garanayo. jahli baa fadhiisiiyey. jahligu markaa dadka wuu dulleeyaa. idan aqoontu iyo cilmigu waa min alquwa. almu'min alqawiy khayru axabu ila allahi min almu'min daciif wa fi kullin khayr. quwada la sheegaya aqoontaa ka mid ah. si awgeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam inagala dardaarmayaa istacin billaahi walaa tacjiz. ilaahay kaalmayso oo isticaanadaada ilaahay kaalmayso, hana caajisin. qur-aankana ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa in badan baa ilahay wuxuu qur-aanka kaga warramaya reer banu israa'iil oo la leeyahy khuduu maa aataynaakum biquwa. war waxaan diinkaanu idiin soo dejinnay war si ijtihaad iyo firfircooni iyo xoog uu ku jiro. khuduu maa aataynaakum biquwa baa ilaahay leeyahy. nabi muuse maxaa ilaahay leeyahy wakatabnaa lahu fi lalwaaxi min kulli shayin mawcidatan watafsiilan likulli shay fakhudha biquwa wa'mur qawmaka ya'khuduu biaxsaniha. ilaahay nabi muuse ku leeyahy fakhudha biquwa, si dadaal iyo tamari ku jirto ku qaado. khuduu maa aataynaakum biquwatin wasmacuu qaaluu samicnaa wacasayna. markii ilaahay uu nebi yaxye la hadlayay waxaa la yidhi yaa yaxya khudi lkitaaba biquwa. war nebi yaxyow kitaabka si xooggan u qaada baa la yidhi. si jiddiya, si ijtihaadu ku jiro, si dadaal iyo firfircooniyo ku jirto ilaahay kitaabkiisa u qaada baa la yidhi. waxaa qur-aanka ilaahay uu ku sifaynayaa dadka wahsiga iyo cagsigu hayaa inay sifada munaafiqiinta tahay. wahsigu ilahay wuxuu leeyahy ina almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala. munaafiqiinta ilahay wuxuu ku tilmaamay salaada hadday u kacaan waa kuwa kaca iyagoo kusaala ah, iyagoo wahsi iyo caajis u hayo. walaa yaatuuna asalaata ilaa wahum kusaala. salaada lama yimaadaan baa ilaahay yidhi iyagoo xaaladda ku sugan mooyaane. ayuha alaxiba,
markaad wahsato acmaashu way isfuulfuushaa wixii maanta kugu habboonaa inaad qabato markaad qaban weydo wayse sii kortaa sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illahi athaqaltum ila alard war dadka mu'miniinta ahu maxaa idinku dhacay oo haddii la yidhahda ilaahay tiisa usoo baxa jihaadka usoo kaca athaqaltum ila alardi baa layidhi maxaa dhulka idinku cusleeyey ayaa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala maxaad dhulka isugu nabaysaane u kici kari weydeen araditum bilxayaati addunya min alaakhira ma adduunka aakhira ka jeclaateen baa ilaahay leeyahy famaa mataacu alxayaati addunya fi alaakhirati ilaa qaliil ilaa tanfiruu يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا أيها الأحبة kuwa munaafiqiinta jihaadka ka wahsada ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay sifaadka munaafiqiinta ka mid tahay taasi yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum fanfiruu hubaatin aw infiruu jamiica waina minkum laman layubati'anna fayna waxaa idinka mida baa ilaahay leeyahy mid dadkaba cagsi gelinaya o fadhiisinaya oo dib u reebaya waxay yidhahdeen daraasaadka cilmiga ee dambe xataa caafimaadka qoladan maanta ka shaqaysa waxay tilmaamayeen daraasay tilmaameen cilmiga Hong Kong ay ku sameeyeen oo dadka Hong Kong baadheen markaas waxay yidhaahdeen laziness-ki iyo waxqabad la'aanta iyo sigaarka bulshada keebaa dadka leyntiisa ku badan bay dhahay sigaarka waxa la wada yaqaanaa inuu sun yahay oo boysiyo dadka laayo cagsiga iyo iska fadhiga ka batay iyagu daraasaday sameeyeen qolana 6,800 meelaasay noqotay qolana 5,700 maanta waa kuwan yidhaahda xanuunada ugu tirada badan lee bini aadamka ku dhaca waxa keena bay yidhaahdaan maxay exercise laan exercise-ka la sheegay inaad boodboodo quran ma waa inaad wax qabato laakiin haddaad iska yuururto una fadhidid qof fadhiya habeen iyo maalinba caafimaadkiisaba khatar ku jira ka kaalay nolosha inaad waxtar ku yeelato iyo wax soo saar inaad yeelato ee waxa khatarta gelaya waxa weeyaan maxay adiga caafimaadkaagii baa khatar gelaya walidaalika bay atabada maanta waxay tilmaamayaan qofku inuu nashaad iskeliyo ma macaan baad qabtaa ma sokor baad qabtaa ma kan baad qabtaa maalintii intaa soco intaa qabo inta yani waa wax qabo fadhigu markaa caqligana uma fiicna iska fadhigaan waxba lagu qabanaynin jirkana uma fiicna aakhirana uma fiicna adduunna uma fiicna laziness markaa nolosha meel laba wax kagama leh ee waxa meesha taalla qofka mu'minkii inuu muntij noqdo qof wax soo saar leh inuu noqdo weligaa ha moodina waqtigu ku dhaafay dadka barbaa isle faataka alqataarka sheegi jireen yani waqtigiiba tegay intaan meesha fadhiyay inta ku hadhay cimriga baa wax soo saar yeelan karta laga yaabaa dadka badhaysa oo maanta konton jirbaad ee waxbaad baran karaysaa dad baa konton jirraynta ku bilaabeen culimadii ugu waaweynay dunida noqday ma garanaysid cimrigaagu intuu ku gabagaboobi doono ma garanaysid inta ilaahay adiga chance ku siiyey adiga waxa ku xilka ku saaran wuxuu yahay inaad rumaysato cimrigu wali mutasac baa jira nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo taa inugu dhiirinaya wuxuu tilmaamaya in qaamat as-saaca وفي يد أحدكم فصيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها نبقى عليها دو قيامه حقا كصوب لا بصوقعه وأدقعنتكو هيسو فصيلة دو حالي جات مريد كيرا لا أبقى ليو جات مريد يرى أدقعنتكو هيسو هداد كجارسين كرتين هذا أبقى شبو نبقى لي أبقال بير هداد كجارسين كرتا بير وإننا يدان قيامة بإننا نركين بين فردنا ونولين وان قبوبي سومالي دو دا فرتان شركة كو قبوبي دا سوما في سومالي مركو بني آدم كو بو حوق بدنا مركو قادو أيو دا هداين وان قبوبي وحولي بو يقرنا بعضين بني آدم كو عقلي كو كقبوبي هداد مانك كقبودو أيو ماد قبودي انت كلا وحبات قبان كرتا انت كلا وحبات قبان كرتا ساوغيد بو نبي عليه الصلاة والسلام وحينات المامية قبل الموت إن فرص جرو انت جاريدك كهر سنة فرصات هيسطو فرصات وحلقو قبطين هيسطو واحد يريسان يساوي حوين نغضة واحد يريسان سبحانه قد شيدا
صدر قرآن أين قيبتها وواح كل يرسو معها حتى لا وهذا مالك استصدر قيب وقور من القرآن كردمين حتى صدر قيب وقور من القرآن كردمين وحيدا عن دوري يتوسن نضوضات كردمين سادات مالك استصدر قيبته هذا هو صدر هل صدر واحد هذا وحقبتكو تراكمك بيريتانكو قيمها كو سماية مركنات قبان يسوي حيرانتي سيكون مغني هداد مالنتي هل صفحة قرطو هل بيج هداد مالنتي قرطو سنة كي مسات صارسة ويران لو بوك بدغوري كرتا سنة كستا وهي سنة كو صدح بقولي شنو اللي حدا مال الموت هداد مالك استبيج قرطو معناه دو حويان ويران بوك صدح بقولو بيج كبدن هي تقولي كرتا لكن هذا استرادو ما حاشي عن قريبة بوك نقول دونتا محام حاشي كقري دونا أقونتو iyo wax qabadku iyo waxtarku tarakumka inay biirtaabay wax ku noqotaa wax kasta oo biira aakhirka wuxuu tagaa maxay wax qiimo leh buu noqdaa taas waxay keensanaysaa inaad waqtiga waxba yaraysanin in wadaada wuxuu tilmaamayay jaamacad buu master degree ku qaatay isagoo shaqo kale markaa wada inta uu gaariga soo socday uu gurigiisa ku sii socda buu dhageysan jiray uu nacjilada jaamacadda warkeeda inta loo duubo ayuu wuxuu dhageystaa inta maxay uu gaariga sii wado hadda inta gaariga gurigaaga jaamacadda inta tagtay gurigaaga ku sii socota inta aad dhageysato ayaad ku qalin jabin kartaa laakiin waa haday taraakumto de waa hadad maalin walba sida tan u dhageysanayso marka waxaan uga dan leenahay amalku iyo wax qabadku iyo waxbarashadu iyo wardiga iyo wax waliba in la biiriyaabay wax ku noqdaan in la joogteeyaabay wax ku noqdaan amalka inaad joogtayso ayuu wax ku noqonaya ilaahina wuxuu ina leeyahay wala tahinu wala tahzanu wa antum la'alawna in kuntum mu'minin wartadka mu'miniinta wahniyo idinku dhicin haniyad jabina hana murugoonina idinka koreeyaba ilaahay tilmaamaya hadda kuwa mu'miniinati hadda dariiqa iimaanka raacdan waa koreynaysan hatta markan awoodaadu intaad qaban kartaa ha yaraata laakiin inta qabo sawgeed baa ilaahay quraanka wuxuu leeyahay wakaayyin min nabiyyin qaatala ma'ahu rabbiyuna kathiir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama da'fu wama istakanu wallahu yuhibbu as-sabirin badana inta nabi qaatala ma'ahu rabbiyun معيسى إلا دقال قالين كوا ربي لو نسبيي داد إلهي سديبي ومي ضعيف وحيد بسو قاري مي إسديبين مي إسدول دقين وحي نغدين داد ولو مركاها لقابا حوق باتي وضع عملك إلهي أنت النتيجة ذاك قاريا أيها الأحبة مركا حديثك كم النبي وكو جبين عليه الصلاة والسلام ورت الماما يصح إريج اللوء وحكاتي تيران يدو دينار تسخو مشغولين أو النبي النبي عليه الصلاة والسلام هاورنن بل مهدا صدا يالي لها وحاسا صبح الأساسا نقولها فإن لو تفتحوا وحي فرطا لو وعمل الشيطان الباب الشيطان كيف فرطه ومحاجره القضاء والقدر مرة توقف ضافه لما على عاله أربعة وحيد هذين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا أدينا لتشوقي لهاي وقوة منافقين وحيلين مسلمين تصور ما نسهدي اسكي تشوقي لهاي ونلا فردي لهايين ما ماتوا وما قتلوا ما نيدنتين لبندلين إلهي سبحانه وتعالى وحوت المامية قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وحتى قريه نادا كترتان انت وقتك وكرنا ما تجريد ويوم الله يبقى إله إليه سبحانه وتعالى سأوجد لو هاي علماء قارين هذا موضوع التعليم كون بيكون في عنتي يلا استعمالك راه ومثلا جامعة بتكسو غالي تشبيسي
wixii aad barataa marketka aan shaqo ku lahayn qof yar baa ku yidhi ila tali markaasaa waxaad ku tidhi maanta haddaan jaaniska haysan lahaa low kaan haddaan jaaniska haysan lahaa kan maan galayna kaasaan geli lahaa waa litacliim qofkan baad rabtaa inaad tidhahda war natiijada anaa waddadan soo marayo ma fiicne waxaad isku daydaa maxay kan kale inaad saas daraaddeed buu nebigu lahaa low istaqbaltu min amri ma stadbartu markii ay uu tilmaamayey dadkii soo xidhay cimrada ama xajka soo xidhay ee xalaaloobi kari waay ee hadyiga waday haddaad hadyidu waddo ma xalaaloobaysid haddaan arrinkayga hadda wixii soo dhaafay hadduu hadda ii bilaabmi lahaa buu nebigu leeyahy hadyigana maan soo kaxeeyeen dadkana waan la xalaaloobi lahaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam culammada waxay yidhahdaan markaa min baabi tacliim iyo meelaha hadday tahay waa bannaan tahay laakiin baabu calaacalka hadday tahay bay leeyihin ma bannaana oo waa maxay qul maa shaaa allahu kaan waa inaad rumaysataa wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah ina allaha kaana caliiman xakiima wixii tegey waxba kama bedeli kartid maadaama aanad waxba ka bedeli karaynin ilaahay wuxuu tilmaamayaa wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah ilaahay wuxuu doono mooyaane wax kaloo idinku dooni kartaan ma jirto ina allaha kaana caliiman xakiima bale waxaad ka calaacalaysa waxaaba laga yaabay khayrku saa ku jiray وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم waxaan ku soo koobaya markaa xadiidka dhammaantiiba nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay mu'minka waxtarka ah ee nafciga leh ee xooggiisa iyo caqligiisa iyo wixiisu qabanayo nashiidka ku firfircoon qawiga ah ayaa ka khayr badan mu'minka daciifka ah mu'minnimaduna dhammaanteed waa khayr marka horeba dardaarankaana wuu ina siiyey wixii ina anfacayana inaynu samayno ilaahayna inaynu gargaarsanno cajsiga iyo kasliga iyo waxaana inaynu iska dayno wain asaabaka shayun falaa taqul haddii wax sidii aad rabtay natiija u dhici weydana ha odhanin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaan sidaa iyo sidaa yeeli lahaa laakiin waxaad tidhaahdaa qul qadara allahu wamaa shaaa facal فإن لو تفتح عمل الشيطان صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين